ور waxay dhahday Allah sida Ali la soo daayay haye horta aaway midda jira isaguna waji jilicsan oo xariifkan wajiga jilicsan ay sheega hadday marba Soomaali tahay she's my sister like kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo muuqaal cusub kiiska Sayid Cali Macalin Daawud ayaan ku gorfayn doonaa maxaa iska bedelay tuugashadii maalinimada Sabtida ahayd ee lagu fulin lahaa Sayid Cali Macalin Daawud qorshaha halista ah ee kiiskan ka soo kordhay ayaan si dhow kula socodsiin doonaa maalinimada Sabtida miyaa la tuuganayaa maxaa iska bedelay maxaa ka jira in aabaha dhalay Luul Cabdulcasiis gurigiisa lagala baxay xilli habeen ah waxyaabihii uu la kulmay dadkii markaasi kala hadlay kiiskan iyo waxyaabo kale oo sir ah ayaan kiiskan kaaga hayaa ogsoonow kiiskan waa kiiska ugu muddada dheer ee guud ahaan Soomaaliya isla markaana waana kiiska ugu hadalhaynta badan ee guud ahaan Soomaaliya looga hadalhayo isha ayaana lagu wadayaa si dhow ayaan kiiskan ula soconnaa saacad walba iyo daqiiqad walban xog ayaa ka helna halkan oo aan markaas idin soo gudbinaa hanagu iifay shaqadeena waa suxufinimo waa baaritaan waa dabagal waa shaqadeena inaan wax idin soo gudbino inaan xogtii aan soo ogaano oo aan soo xaqiijino inaan idin la soo wadaagno shaqadeena hanagu iifsin muuqaalkan like saar sii share gareyso uu dad badan u gaaro subscribe saar barteen 10,000 ee ugu horeysay ayaan rabnaa inaan gaarno oo aan buuxino saacadaha soo aadan ama maalmaha soo aadan waa labada maalin ee soo aadan 10,000 ayaan rabnaa inaan buuxino subscribe saar like gare share gare muuqaalkan wamantigana ugu duucee walaashina Luul Cabdulcasiis inuu alla jannadii Firdawsi ka waraabiyo ogsoonow kiiskan waa kiiska ugu waqtiga dheer ee Soomaaliya soo mara Sayid Cali Macalin Daawud waxa uu si arxan darro ah u gubay xaaskiisa Luul Cabdulcasiis maxkamadda ayaa la geeyay gobolka Banaadir intuu gashay ay ku xukuntay raafaan ayuu qaatay maxkamadda raafaanka ee gobolka iyana diltuu gashay ay ku xukuntay marka ay meeshaas marayso Sayid Cali waxa uu furan inuu qaato raafaan kale oo maxkamadda sare ee gobolka Banaadir lagu gudbinayo way isku dayeen waase laga soo diiday maadaama laba goor lagu xukumay diltuu gasho maxkamaddana waxa ay cugsatay diidmadeeda in ninkan isagu uba tilmaamay inuu gacantiisa beenziinku ku soo gatay xaaskiisii uu ku gubay muuqaalo hore ayaan baahinay oo arrimahaas oo dhan aan kaga hadalnay maanta ma rabno arrintaas inaan ka hadalno inaan dib ugu laabanno ma rabno muuqaalkii u dambeeyay shalay ayaan baahinay waxaan ku sheegnay in Sayid Cali Macalin Daawud Sabtida la tooganayo maalinimada Sabtida in tiirka iskool buluusi la geynayo maxaa iska bedelay maxaa soo kordhay maxaa sir ah laba habeen ka hor waxaa gurigiisa lagu weeraray aabaha dhalay Luul Cabdulcasiis waa aaba Cabdulcasiis gurigiisa ayaa lagala baxay waxaa la baxay ciidamo aan la garanayn heybtooda balse wax dhib uma geysan ma jirdilin waxba kuma samayn waa la waday gaari bilid proof ayaa lagu qaaday waxaa loo geeyay nin mas'uul ah wax dhiba looma geysan lama jirdilin waa la waday nin mas'uul ayaa loo geeyay ninkaas waxaa la yiraahdaa Abshir Shuuriye waa nin xildhibaan ah waana nin beesha bargidil ka soo jeeda Sayid Cali shaqooyinkii kala duwanaa ee airport ugu horeeyay ninka geeyay waaye ninkii ayaa loo geeyay waxa uu kala xaajooday arrinta Sayid Cali Macalin Daawud madaxweynaha waa uu saxiixay warqadii ugu dambeysay ee lagu tooganaa Abshir Shuuriye waxa uu si kulul u weydiiyay Aba Cabdulcasiis kiiskan inuu ka qaato lacagaha tirada badan ee loo soo bandhigay wiilkan uu iska cafiyo aabaha Luul Cabdulcasiis waa uu diiday waxa uu yiri aniga xitaa haddii nafteyda aan ku weynayay kiiskan faraha kale ma baxayo haddii aan nafteyda ku weynayo anigoo Aba Cabdulcasiis oo Luul leh haddii ay habar gidar dilayso xitaa kiiskan kama tanaasulayn lacagna ma qaadanayo waa warca waa la soo qaaday gurigiisa ayaa lagu soo celiyay dib waxaa la bilaabay in Luul Cabdulcasiis laga bixiyo qabriye ay ku dugnayd oo iskool buluusiya oo ay dawladda dhulkii u baahatay 10 maalin loo qabtay meeshii waa laga bixiyay Luul Cabdulcasiis waxaana lagu aasay calamada deegaanka calamada ayaa lagu aasay Luul Cabdulcasiis Luul Jasiira
marka ay meeshas marayso waxaa soo baxday in sayid cali macalin daawud maalinimada sabtida ah la tooganayo lama shaacin laakiin ila hoose iyo si hoose ayaa loo wargeliyey qoyska luul cabdulcasiis sayid cali sabtida ayaa la tooganayaa isdiyaariya ayaa la yidhi oo fiirsada wejigii ka fiiriya balse arrinaa ku hoos dugneyd marka waxaa jiray nin u eg sayid cali macalin daawud ninkaas ayaa la rabay in la qabto tiirka la geeyo maskiin ahaa iska ganacsata ahaa in la dilo waa ninkii maalmihii hore la leeyahay sayid cali ayaa xabsigii ka baxsaday sayid cali ayaa inta maray oo kaamera lala daba taagnaa ninkii maskiinka ahaa ee miiska yar lahaa ayaa la rabay in la soo qabto oo tiirka la geeyo ninkii wuu hadlay haddaba wuuna ka baxsaday dalka waa arrin xaqiiqa ah ninkii dalka waa uu isaga baxay waxaa la rabay in ninkaas tiirka la geeyo sayid calina lagu bedelo kadibna xabsiga laga bixiyo falsafadaas rag ayaa diyaarsaday laakiin ninkii sayid cali u ekaa qorshihii wuu fahmay dhowr mar ayuu waxa uu arkay isaga oo markaa culaysyo badan ay ku soo kordheen rag badan uusan garanayn oo la soo xiriiraya rag badan uusan garanayn oo yacni goobtiisa ganacsiga imaanaysa ninkii wuu yaabay wuxuu go'aansaday inuu dalka ka baxo wuu dhuuntay ninkii xilligan waxaa lagu sheegayaa inuu Kenya joogo waa Kenya waxba kama jiraan ee sayid cali maalinimada sabtida la tooganayo waxba kama jirin laakiin ninkaas ayaa la rabay maskiinka in tiirka la geeyo sayid calina laga dhigo waa la toogtayna la dhaho wixiina si hoose loo dhammeeyo qoyska luul cabdulcasiis keliya la wado warbaahintana laga qariyo sayid cali waakan waa la toogtay saas ayaa la rabay laakiin arrintu way fashilmatay ninkii waa uu fahmay wuuna baxsaday oo dalka wuu ka dhoofay xilligan Kenya ayuu joogaa sidoo ila aan ku helnay isaga ayaana tilmaamay in goobtiisa ganacsi xitaa uu isaga cararay waa arrin kale oo halis ah qof walba oo sayid cali u ekaan kara ha is ilaaliyo xilli walba ayaa shaafta lagula kici karaa haddaad sayid cali meel ugu egtahay is ilaali shaafta ayaa lagula kici karaa xilli walba tiirka iskool bulshada lagu soo taagi karaa sida ninkan ku dhacdayba ninkan kaamera ayaa lala daba taagnaa isagoo camba kadanayo isagoo laamiga socda isagoo meel walba maraya waa sayid cali waa kan wuu baxsaday waa la sii deeyey waa ninkii lala taagtaa waa ninkii taleefanka lala daba taagnaa ninkaas khatar u galay wuu fahmay dalkuu ka baxsaday adiga haddaa sayid cali u egtahay meel yar uga egtahay is ilaali shaaftaa lagula kici karaa tiirka iskool bulshada lagu geyn karaa aniga halkan ayaan kaa soo tabinaya xaqiiq walbana waan fashilayaa ilaa ugu dambayn luul cabdulcasiis walaashan allah u naxariisto jannadii firdaws allah ka waraabiy aamiin dheh qaybta hoose commentiga ugu duceey waa u duceynaynaa walaasheen way geeriyootay si arxan darro ahba ninkeeda ha u dilay laakiin way dhimatay ilaahay maalinku uu qoray ayay ka baxday dunida allah u naxariisto aamiin dheh tan labaad luul cabdulcasiis ilaa cadaalad ay ka helayso kiiskan waa ka hadlaynaa waan wadaynaa dad badanaa nagu soo aflagaadeeyey komantiyo iyo fariimo argagaxda ayaa noola soo diray annaguna la cabsi gelinayo laakiin annaga cabsi ma qaadanayno ilaa maalinta ugu dambaysay ee sayid cali tiirka la geeyo oo aan aragno warbaahinta la isugu waco oo la soo tabiyo sayid cali wuu dhintay la dhaho waa la toogtay maalintaas ayaan kiiskan ka hari doonaa ama aan ka dhex bixi doonaa waa sida waajibka nagu ah adina waajib kaa saaran anna waajib iga saaran soomaalidu idilna waajib ka saaran muuqaalkan sheergare muuqaalkan waa cadaalad heeliye waa fashiliye xog walba oo kiiskan ka soo kororta xilli walbaa kuu fashilaya xog walba oo kiiskan aan ku soo dabagalno kuna soo ogaano waan ku fashilaynaa rag ayaa nala shaqeeyo adinkiidin ka mid ah way mahadsan yihiin fariimaha noo soo dira akhbaaraadka nala socodsiiya qoyska luul oo si weyn noola shaqeeyo way mahadsan yihiin qayb ka mid xubnaha sayid cali oo daacadda ah ee raba in cadaalad ay hesho walaashan luul iyagana way mahadsan yihiin sida quruxda badan ay noola shaqeeyaan intaan ku kulmayna barnaamijkan kiisa xiga Thank you.